ahayd inaanu meel hore aanu ku joojin kari lahayne waxaanu u joojin weynay inaanu shardigii fulino meeshii la isku ogaa ilaa gunta inaanu soconno ceelkani haddii uu waqti badan daarnaado iyo haddii waqti gaaban daarnaadaba ma aha ceel go'aya waxaanu tijaabinay 59 saacadood oo uu free u soconayay ayaanu tijaabinay oo uusan marna isbedelin sidaa darteed waxaanu filaynaa inuu noqdo ceel bulshada halkan degan miyi iyo magaalaba inuu anfaco waxaanu filaynaa xagga tayadiisa ceelku wuxuu aad iyo aad buu tayadiisu wanaagsan tahay laba kaysin baa ku jira service kaysin inta hore oo dhul qiyaasta gaaraya 100 mitir hore ayaa waxa ku jira service kaysin inta kalena waxa ku jira intiisa badan kaysinkii caadiga ahaa shaandadii iyo kaysinkii caadiga ahaa labadaba marka ceelku uu aad iyo aad ceelo adag weeye oo dhulka uu ku yaala 115 ka hore mooyaan inta hoos oo dhammi waa dhagax siman oo aan marnaba dhoobo iyo sidoo baalku u qodayay mashiinku ayuu soo saaray biyo isagoo aan wax dhooqa iyo wax ciida midna taaban ayuu soo saaray biyihii oo booday oo aan dhooqa wadan sidii baanuna u joojin ilaa iyo markii ugu dambeysay halkii loo baahnaa la gaaray sidaas aan tijaabadiisa ku dhameystirantay kadibna diyaarintiisii ayaa loo gudbay waxaa la dhisay taangigaas oo aad u jeedaan oo dhammaantii shuba waxaa la dhisay 2 baraagood oo geel ah oo shuba oo blockade iyo laga sameeyay wax burburaya si ay raandis u yeeshaan waxaa la sameeyay 3 baraagood oo ariga ah waana la kala durdurkiyay si xooluhu ay isugu ciriiriyeen waxa la sameeyay meeshii booyaduhu ka dhaansan lahaayeen oo aan xoolaha inay didiyaan loogu talagelin daraf kale ka samaysan matoorkii qolkiisii iyo qolkii ay dadka ilaalada ahi joogi lahaayeen sidaas aan ku dhameystirnay muddo kooban oo 28 maalmooda ayaa ceelka dhameystirkiisu uu ku soo gabagaboobay anigoo ku hadlaya behalf of the Ministry of Water waxaa halkan maanta ka muuqata hawl farxad leh oo wanaagsan dawladda Soomaaliland ay fangreynayay waxaan u maraynayaa degmada gobolka Badhan waxa uu soo hodatay hawl farxad leh hawli markaa inta fari kaba qodnaa magaalada wasiir waan dhex maray waan tagay waan soo arkay oo maalintii ugu horeysay maado Badhan waa magaalo weyn oo caasimada in fact una baahan aan booyada u waraabin karin una baahan in mini water system laga dhigo oo magaalada la biyo geliyo waxaan u malaynayaa inaan ka daalay baan u malaynayaa taas dabagalkeeda in more boreholes halka laga qodo system buuxa laga dhigo magaalada waa adigu marka la isku celceliyo waxay noqonaysaa ilaa 20 kilomitir 20 average magaalada dhexdeeda ilaa distance inta marka la isku daro in system loo sameeyo magaalada waa muhiim magaalana waxay magaalo noqotaa marka biyo waxaan jecel lahay ceelkan isuduwaha gobolku inuu ku dhaqo nidaam saacadan laga bilaabo waxaan u malaynayaa wasiirku adduunka ku wareejinaya hawsha iyo ka cabanin magaalada iyo deegaanka dadka ka cabaya waa muhiim ha ahaato hawshaada kale lagaaga baahan yahay lagaaga fadhiyaa waxay tahay inaad more report soo dirtid oo waayo hadeer waxaynu galay naq laakiin xilliga jilaalka xaaladdu inta ka kululaanaysa sidaan warka ku helayna ceelkani wuxuu biyo u yahay 5 magaalo inkastaba ay isu kala jirtireen awal hadaftima ayaa looga soo dhaaminayay marka waa alxamdulillah haddii maanta halkan biyo looga helay idinkuna inaad la shaqaysaan oo la tacabtaan waa very important iyaduna community ahaan aad la shaqaysaan wixii idinka baahan yahay aad la caawisaan dadka iyo deegaankana aad u shaqaysaan waa muhiim waa very important waxaan halka salaamayaa madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxaan kaloo halka salaamayaa wafdida sharafta leh oo noogu timi gobolka oo uu kamid yahay wasiirka gaashaandhiga iyo wasiir dawlaha iyo wafdida balaaran aad baan ugu hambalyeynaa aadna waan u soo dhaweynaynaa aadna waan ugu faraxsanahay maanta inkastoo ilmuhu markuu kafka ku raago marmaru kafka ku raago oo laakiin maanta alxamdulillah rabbil caalamiin shacabka iyo bulshadaba haddaan maanta ay gudoomiye ku-xigeenka gobolka aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa ugu hambalyeynaa
waxaan mas'uuliyad baa la saaray waxaan salaam ballaaran u dirayaa madaxweynaha Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo sidoo kale waxaan aad u soo dhaweynaynaa wasiirada uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga wasiiru dawlaha waftida ballaaran bulshada farxadda iyo reynta iyo abaalcelinta loo qabtay muujiyay ee isku soo baxay fagaaraha sidii hore loo yiri wasaaradda iyo kambaniga dhisay madaxda mas'uuliyadda ceelka cid lagu wareejiyay waa aniga insha Allah si degdeg ah waxaan anaguna u fulinaynaa gudidii magaalada u matali lahayd iyo operatooradii dad mas'uuliyiin ah oo ballan qaadayna inaan oofino in aan ceelkaas tusaale u noqdo oo wax badan ka bedelo ceelasha hadda laga cabanayo oo dhibaatada badan inaka haysato in ceelkaas uu noqdo hormuudkii ceelasha sidoo kale waxaan insha Allah rajaynaynaa in ballanqaadyada la qaaday ay ugu horeysay biyo-gelinta community-ga ka qayb qaataan community-ga wixii ka yimaada ay muujiyaan ayaa wax badan ku soo dhawaanaysa waxaan anagu mid qura dardaaran ka dhigayaa in bulshadu reer barameed ay ka qayb qaataan sidii ay biyaha u gaarsiisan lahayn magaalada waxaan ugu horeyn u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo sida uu soo xilqaamay ee wanaagsan markii wasiirada iyo odayaasha beeshuba ay kula taliyeen in meeshan oomanaha ah laga saaro dhibaatada ay ku jirto waxaan kale oo mahadnaqayaa wasiiradii ka soo dhirindiriyay oo wasiirka gaashaandhigu ugu horeeyay iyo wasiiru dawlahuba hawsha soo dhamaadkeeda waxa kale oo isaguna mahadnaq ballaaran iska leh isuduwaha wasaaradda biyaha gobolka Muxyidiin Saciid Ducaale oo isaguna aad xoog u saaray oo dadaalay hawlahaas intii badnayd aanu hawlaha ku jirnayna nala shaqeynayay waxaan leeyahay shacabkuna ha ku dadaalaan inaanay ceelkaas isku qaqabsan ee ay ilaashadaan oo mas'uuliyadeeda iyo nidaamkeeda ay isaga dambeeyaan waxaan kale oo leeyahay wax qabadku u badan yahay hadii wixii Ilaahay qadaro subxaanahu wa ta'ala oo wax qabad oo damana way soo socdaan oo way imanayaan yaan laga abaaldhicin iskuulaadkii hore ee la dhisay waxyaalihii hore ee la qabtay qaybtii isbitaalka lagu daray waxyaalaha la wado oo dhan iyo tii gobolka la dhisay iyo ceelkan iyo ceelal dambe iyo wixii kale oo khayraada shacabkana waxaan leeyahay waxa taageertaan oo aad gacan buuxda siisaan hadba qofkii wax idin qabanaya inaad gacan buuxda siisaan oo aad taageertaan sida daraadeed intan iyo inta kaleba maanta hadii ay isu yimaadeen badan iyo odayaal markii wax qabad idin yimaado sida isugu soo urureysaan waa fiican tahay markii doorasho soo dhawaatana codkana siiya ya sida aad ceelkaba noogu soo dhaweynaysan noogu soo dhaweeya oo doorashadana nasiiya codka wax badan baa la idin qabanaya alxamdulillaah rabbil caalamiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta in ceelkii magaalada Baran laga furay halkan ugu horeyn waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ceelkan kharashka ku baxay iyo hantida ku baxday iyo dhaqaalaha ku baxay iyo maskaxdaba soo keenay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa ummadda mandaqada ku noolina 100% aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin waa guul u soo hoyatay deegaanka bariga Sanaag gaar ahaan degmada Baran iyo nawaaxigeedaba marka aad baan ugu faraxsanahay madaxweynahana waxaan leenahay ilaahay khayr hakaasiyo jazaakallahu khayr de waa ummadaadii wixii aad u qabatay aad baa ummadana kugu mahad celinaysaa waxa farxad weyn noo ah haddaan ummadda deegaanka annahay ceelka aanu dul joogno aad baan ugu faraxsanahay deegaanka waxa soo martay abaar iyo biyo la'aan wax ka weyn ma jiraan biyo la'aan dhibteeda ilaahay uunka dhul iyo bani aadamka wuxuu ka abuuray biyo wa khalaqna min al-maa'i kulli shay'in hayyan biyo la'aan lama noolaado waxaan leeyahay madaxweynayaasha wasiirada inta hadda soconaysa inta xagga ku hadlay jidda waa u mahadnaqaynaa mahadu waa labo xaqiiqada mahadda Ilaah baa iskale subxaanahu wa ta'ala innaga Ilaah wuxuu ina siiyay mid majaaza oo iskaga noolaano nabigeena wuxuu yiri Allahumma salli wa sallim barak alayhi qofka ihsaanku loo galo oo garan waaya mahadsanid mahadda Ilaah ka weyn ma garto tan allo ka weyn bani aadamka siisi buu garan waayo tan ka weyn ma garto
Soomaali waa ku mahmaadaa dumarku jeclaa mutarmaa hadalkuna isagoo la og tagin mutarmaa waxaan leeyahay mar labaad annagu waxaanu qaasi ka joognay oo nafta noo keenay biyo la'aan waxaa ku xigay booyado shilinkii haystadoo deegaanka ahaa booyad buu iibsaday booyaddaa haddii ummadda u iibsho wuxuu iibsaday naftiisa dadkii aad baa loogu dhibay laakiin waxaanu ka rajaynaynaa booyadaha in alla nooga rayo mar labaad waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliya waxaan leeyahay wasiirada madaxda dhammaantood waa salaamaynaa waa u ducaynaynaa mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo waa ku mahadsan yahay riigana loo sameeyay wasiirka gaashaandhiga wasiirka Rashid Axmed Xaaji Cali iyo wasiirada kale iyaguna waa ku mahadsan yihiin annaguna waxaanu ku dadaalaynaa si khayr qabta iyo si nabadgelyo leh inaanu reega uga shaqeyno hadiina la ku soo wareejiyo sidii riigaga kale ilaahayga ka dhigi maayo marka hore mid waa mahadnaq iyo salaam ballaaran waanu direyno talabaadna waa soo dhaweynta waxaan ku horeynayaa mahadcelinta iyo salaanta ballaaran waxaanu ka wadno haddaan odayaasha nahay deegaankan gobolkan Badhan u dhashay kuna hadlayna dadweynaha afkiisa ku hadlayna waxaanu u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo maalgelinta suuban ee ceelka uu geliyay waxaanu leenahay waa ku maadsantay madaxweyne waxaanu rajaynaynaa mar labaad inaan ku doorano iyo mar saddexaadba baanu rajaynaynaa tan labaad iyadu waa mahadcelintii waxaanuna kuu soo gudbinayaa anoo odayaasha sidaan hore u sheegay deegaanka ka tirsan dadweynaha carabkiisana ku hadlaaya waddanka waxa ka jira deegaanka haraad baa ka dhacay qayla roorkiisu idin soo galay oo idin soo gudbiyeen wasiirada ka tirsan deegaanka waa aqbasheen waa ku mahadsantiin mar labaad waxaanu soo joognaa hawlka madaale weli waa hogadii wixii ay qabatay jamhuuriyadda Soomaaliland ama xagga waxbarashada ka qabato caafimaadka ka qabato biyaha ka qabato wadooyinka ka qabatay waa u tirsan yahay wax la dafirsan yahay ma aha waana ku mahadsan yihiin tan labaadna waxay tahay wasiirka wasaaradda gaashaandhiga Axmed Xaaji Cali Cadami wasiirka dawlaha wasaaradda xanaanada Cabdiraxmaan Jaan Cabdille waxaanu leenahay walaalayaal waanu idin soo dhaweynaynaa ilaahay maanta biyo wuuna siiyay waxaan leenahay madaxweyne Axmed waa ku mahadsan tahay ilaahay ajra ka siiyo waxaan ka codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland in si biyaha loo gaarsiiyaa maadaama Badhan iyo guryaha maadaama biyo xaraamaha ka yarfan yihiin Badhan waxa aad u weynaatay muddooyinkii dambe waxa cabashay u weyn oo muxuu ahaa ummaddu ka cabanayaan waa biyo la'aan marka alxamdulillah ilaahay noo siiyay jamhuuriyadda Soomaaliland waxa leenahay guud iyo ictiraaf insha Allah ولا حد يبي حق باي من حلال مهركاغو waa noqon wala arimaha bulshada ee Soomaaliland dalka iyo dadka u qabato xaq waa imana xalaal way noqon buuga xisaabtana waa la isugu imanaya waxaan leenahay Soomaaliland ha noolaato aad iyo aad bay u mahadsan tahay waa u mahadcel malaa mar labaad iyo mar saddexaad ba aad bay u mahadsan aad baan nooga mahadcelinaynaa waxyaabaha faraha badan oo aan biyahan kaliya ku koobnayn oo arimaha bulshada oo nolosha bulshada ku saabsan waxaan uga mahadcelinaynaa aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa ajar iyo xasanaad bedelkeedana ilaahay uga baryaana hadaa u dhimi baata riigii Badhan ceelkii Badhaneed hadaa u dhimi oo la furay oo Soomaaliya dawladda Soomaaliland ay samaysay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadka mandaqada joogaana waa soo dhaweeyeen wasiirada waa soo dhaweeyeen waxaan leeyahay waa nimco haddii ilaahay ku siiyana waa laga xamdinaqaa waxaan dhihi lahaa ceelka biyaha hala dhaqaalaysto insha Allah kuwa kalena waa la helayaa laakiin kuwa la helayo ama loo hawlgelayo waxa lagu dhiiran karaa
markii la ogaado mujtamacu ceelkan sida ay u dhaqaalaystaan oo uga faa'iidaan waxaana aad u adkaynayaa kelmaddii oo ahayd ceelasha mandaqadeenna waa ogtihiin soolashoo dhan ceelbu xingalool dhahar ceelal baa ka wada qoran ceelashaas waa il baatrool ah xoolaha ka cabba iyo dadka ka cabba lacagta ka soo baxda dadkii hayn jiray waa wada dhinteen kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe carruurahoodii xataa badidoodu waa dhinteen waa dulmi waxa weeye ceelka dadka mas-uulka looga dhigaa marka hore waa inay dulmi iska ilaaliyaan mar labaadka ummadda ay waxu maamulayaan waa inay noqotaa waxa ay ka qaadanayaan irsiq xalaala midda saddexaadna waxa weeye ceelka inay kayd u sameeyaan oo baahidiisa dawlad mar walba ma kabi kadho waxyaabo waaweyn oo aan dadku kari karin waa loo qayshan karaa laakiin waxyaabaha yaryar oo daynabadu maxay joogtaa $4,000 iyo baa laga yaabaa inay joogto rabar yar baa laga yaabaa inuu go'o oo $10 ama $5 oo la yidhaahdo ciidan way waa waray waxyaabaha in la iska ilaaliyo oo dadka ceelka loo dhiibay hadday mas-uuliinta yihiin ka shaqaynaysa operatorska hadday yihiin guddida in muxuu ahaayey ay ku dadaalaan ceelkaasu inaanu ka fadhiisan mujtamaca ka cabbaaya iyaguna inay shifaystaan oo ka xamdinaqaan qayladii waa ognahay ceelkii barameed inuu guray waa ognahay hadda malaa xoogay roobaa qabto xoogay biyaabaa soo maray laakiin joogta maaha kan waa joogto hala dhaqaalaysto mid kalena waa maqlaaya xaggaa laga qodayaa insha allahu kaasuna waa faa'iido ilaahay inuu ka soo saaro biyo kuwa kalena waa lagu dadaalayaa waa la gaari doonaa waqti tuubadu ay gaadho magaalada waa runtii injineerku haddii aan tuubooyinku magaalada gaarin waa dhib laakiin xoolaha ka cabbaaya xataa xayawaanka dhidarka iyo dawacada iyo shimbiraha iyo haraadan meesha soo mara naftoodu waa sadaqo waxaan leenahay ha lagu dadaalo ha la shifaysto ha lagu dadaalo sidii loo dhaqaalaysan lahaa waxay ahayd aayaddii qur-aanka ahayd wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xaya alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ceelkan oo muddo badan la isku canaananayey shirkado kala duwan la siiyey kuwayt fan ay ballan qaaday inay tabarruc ahaan ku dhisto laakiin sababo badan oo farsamaha awgood ay ka baaqatay xilkaa barigaa waxaannu odhan jiray ceelku waa nasiib daran yahay biyo helka badhani waa adkaaday muddo badan baa sidaa maaragtay loo hadalhayey wax walbana wakhti bay iska leeyihiin waxaa ku guulaysatay shirkaddan hadda mas-uuliinteedii inala joogto waxayna aad iyo aad bay runtii weliba wakhti kooban bay ku dadaaleen waxaan hadda maaragtay abaalmarin uga dhigaynaa wixii dambe oo la qodayo faataxaday kan ku akhriyeen inay ku akhriyaan wadaaddaha ku jira dabadeedna ay ilaahay yasiro in ceelkaa biyo fiican laga gaadho baan haddii alla yidhi ku dadaalaynaa waa customers wanaagsan waa macmiil wanaagsan bay u noqdeen wasaaradda ceelkan berigaa hore waxaa u xil saaraa oo hawsha laga sugayey wasaaradda macdanta iyo biyaha markay isku jirtay muddo dheer bay qaadatay saambals badan baa laga qaaday ilaa iyo kenya loo diray laakiin lacagtii ceelka lagu qodi lahaa way soo bixi weydo way raagtay sidaan hadda sheegayo waxaa markaa looga gudbay in hadda lacagta ceelkan lagu dhisay shirkad ajnabihii ma bixin kambani kale oo dabadda ka yimid ma bixin kuwayt fan lacagteedii kuma jiro waxaa ballan qaaday oo markii dambe ay noqotay qasab in lagu wareego wax la hubo waxaa jira raasamaalkaad gacanta ku haysato waxaad cid bani aadam oo kale ka sugaysaa rajadiisu way dheeraataa dabadeedna dawladda somalilan weliba madaxtooyada baa maalgelisay oo ay qasab noqotay wixii ay iyagu markaa la hayo in lagu maalgeliyo guul baana laga gaadhay nasiib wanaagna waynaga maanta dul joogna innagoo isu dhan hab farsamo waxaan soo qaadaynaa waxaan rajaynaynaa waddadii ceelasha kale mareen inaanu marin sida ceelka hadda laga soo qaylinayo oo ceelbu iyo ceelal kaloo badanba lacag fara badan baa la geliyaa
adduun badan baa lagu khasiraa cid baa mas-uuliyiin looga dhigaa dabadeedna waxa dhacda mar walba marka ay tuubo yari ka xumaato in qaylaroorku soo gaadho mashriq iyo maqribba laga tuuro yaa muslinaay ceelkii waa fadhiyaa wax kaloo u fadhiyaana wax la arkaa wax qiimihiisuba $10 yahay ama $20 inuu u fadhiistaa waa dembi waa xaaraan qodniinkii markaa dadka loo dhiibay waxaan ku dadaalaynaa 2 nin oo operator oo isu bedela in loo dhiibo inuu kormeero ninka isuduwaha ah oo markaa biyaha u qaabilsan mandaqada tan dabadeedna odayaal 4 ilaa 5 oday oo khayr qabayaal ah oo salaadood iyo weesadoodana iska wata cibaadadooda wata nabadgelin kara tala bixin kara u dhaxa dadka oo aan hadhowto hadal kale iyo shuquladii iman jiray aan imanay xoolihii reer hebel baa yimid oo waa ku qadeen haddii aan laba ku rooyahayay isriir badan oo way raageen midna aanu iman baan ilaahay ka baryaynaa in maamul wanaagsan loo sameeyo daris laga dhigto wixii hore inoo soo maray dariskaa markaa hadda lagu dabaqo dad hanan kara in loo dhiibo maamul ahaan iyo odayaal ahaanba oo korka ilaaliya saasaan haddii alla yidhi ku dadaalaynaa wixii hadda farsamada ka dhiman waa la isweydiinayaa oo injineerkii uu joogaa waa nala socdaa annaga iyo kambanigaba dhex buu u yahay dabadeedna wixii markaa halkaa jira oo su'aalaad loo baahan yahayna qorada farsamadaa ka jawaabaysa wixii kale waa laga wada hadlayaa si lacagta u dhiman oo yar iyadana markaa loogu sii daayo u xalaalowdo waxaana rajaynayaa dadka ka cabbaya iyo xoolahaba inay shifo wanaagsan u noqdaan ee loo aayo oo raandhiis fiican yeesha in ilaahay ka dhigo haddana waxaanu guddoonsinaynaa shahaado sharaf macnihii wasiirka gaashaandhigga axmed xaaji cali cadami mudane wasiir naga guddoon shahaado sharaf doonnahay maamulka gobolka